هذا إلهي أمر يساعد إلى السد إلهي بقول عليه 40 كان نووي جرداني رحمه الله شرح يسوح وكشف قصة عجيبة حديث كاس رابعة رضي الله عنها بين يدو تكنيسة أي نتوقع أقل كيقول صوت عيب اللي markaasuu arkay haweeney iska tukanaysa oo aan in yarna aan cabsanayn ma cabsanayso way maqashaa shanqadha inuu tuugo qalka u soo dhacay waa arkaysaa laakiin ma dhaqaaqin meesheediina kamay dhaqaaqin salaadiina kamay bixin waxaa la yidhi wixii aqalka alaab u taallay alaabaynay ooline wixii yaallay markuu urursaduu yidhi bax iridii uu ka soo galay baa ku noqotay maaragtaana gidaar bay ku noqotay derbi markaasuu yaabay wuu soo noqday haddana wuxuu yidhi halkeed ka soo gashay halkaad ka soo gashay maan albaabka uu furan yahay uu arkaa marali markuu albaabka soo gaarana wuxuu arkaa albaabku xidhan derbigu madaxa ku dhifta gidaar markaasuu yaabay haddana uu soo noqdo daragshigii uu dib u qaatay daragsiyoodii markaasuu halkiibu isleeyahay wata halkaad ka soo gashay furanna ka baxa markuu gaarana meesha u xidhan tahayba alaabtii uu sitay oo dhan buu u dhigay baa layidhi ilaa salaadda ay ka baxaysay iyadii u sugay wuxuu yidhi kolka salaaddii ka baxday buu ku yidhi wixii aan kaa qaato aniga kuu dhigay albaabkii halkuu iga xigay ii sheeg buu ka yidhi 40 nawawiga ayuu ku sheegay jardaani sharaxaas qisadaas markaasay ku tiri anigu albaabka ma xidhin albaabka xagga sare laga xidhaa bay tiri xagga sare ma doonaysaa in albaabka laga furo haa toobadkeen bay ku tiri ballanna qaad ilaahay inaad u noqonayso oo dembi dambe aad ku dhacayn oo tuugada aad dhaafayso ilaahay u ballan qaad waa iga ballan buuri maanta laga bilaabo inaad toobad keeno hal mar keliya markuu sidaa yidhi tiri albaabkii waa kaasa ka bax albaabkii buu ka baxay way sujuudo waxay tiri yaa rabbi anigu waa kaa qoloftiisii waa soo jeediyey qalbigiisa adiga ku shaqal ilaahu qalbigiisa soo jeedi bay ku tiri sidii buu ku toobad keenay